السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaa ina socda cashirkeenii koowaad ayaan inala socda weli. marka qodobkii sideedaad ayaan marayna, halkan ayaan kasii wadi doonaa. waa gabagabaynaynaa videoga muuqaalkan ku dhamaystirna insha allah. point 8 waa qodobka sideedaad. use u isticmaal r u isticmaal and are not iyo are not u isticmaal for the pronoun we, magacyaalka we. marka magacaalka we waxaa uu leeyahay we markii la isticmaalo afar lahaado we markaa isticmaasho subject ahaan oo waxaan soo qaadan waxaa raacinaysaa r baa raacinaysaa. marka waxaad isticmaalaysaa r baa raacinaysaa marka aan rabno dee inaan markaasi waxaanaa sheegno wey. laakiin markaan rabno inaan diidno wax iska nafyino oo waxaas inaan iska diidno waxaan isticmaalaynaa we. markaan ahno dee waxaan raacinaynaa are not manihi wey. macnaa are not manihi, we are not manihi aagaasaa saas ula jeedaa. use maxaa waaye u isticmaal, r u isticmaal, and iyo are not u isticmaal for the pronoun we, magacyaalka we oo loola jeeda annaga. waaya my friend saaxiibkeyga, and I iyo aniga. qaar waxaa laga inaa I inta aragto ama isku raacsiinin dabaalnimadaada waa qalad wey. my friend saaxiibkeyga, and I iyo aniga. marka ayda waa lala socdaa, waxaa lala socda my friend baa la socota. marka jamacnimadaas la raacaya, antaan la raacaya. antaan baa keentay iyada hadda keligeeda maaha. are here, halkan ayaa joognaa. my friend and I are here. saaxiibkeyga iyo aniga halkan ayaa joognaa. we annaga are not late, ma soo daahno. are not manihi, late kuwa soo daaha. we're good friends, waxaana saaxiibo wanaagsan. we're not busy, manihi kuwa mashquulsan. we aren't busy, ma mashquulsani. ma mashquulsani. marka we markaa isticmaasho subject ahaan, marka we u isticmaasho tenniska la joogana uu yahay simple present, waxaa isticmaalaysaa r isticmaal ama are not isticmaal. marka sidii caadada hal jumla soo qaadaynaa. waxaa leenahay we annaga are waxaan nahay. we are annaga waxaan nahay busy kuwa mashquulsan. we're busy waa mashquulsanna. waxaa rabaa inaan si kale muu qori karaa oo saa ka fudud. haa sida meeshan qacda waxaa waye waa isla sidii lagu sameynayo you iyo they lagu sameynayo. we soo qaado kadibna arta ku dhejide. waa lagu lejeynaa wax firaaqa u diideysaa, wax meel bana lama arki karo. kadib eedaas hawada ku cun, waxaa ku bedeysaa calaamad apostrophe. xaalada marka waxay noqonaysaa we're busy, waxaan nahay kuwa mashquulsan. we're busy waa mashquulsannahay. we're busy waa mashquulsannahay. waaya diid markaa ka dhigin waxaan sameynaynaa laba qaab. inaan aarno toos soo qaadano oo aan niraahno we annaga are not manihi busy kuwa mashquulsan. manihi we are not busy, manihi dad mashquulsan. ama waxa weeye si fudud baan u qori karaayo qaabka diidmada xitaa. waxaan sameynayaa we're baan oranayaa we're kadibna not oo keliya
oo keligeeda oo madax banaan la soo qaadaya maxay noqonaysaa markaa we we're not peace we're aa lagu dhawaaqayaa we're not peace mani dad mashquulsan ama waxaa kaloo samayn kartaa wiida keliya qosil iyo madax banaan labadan baan isku dhejinayaa waxaa leedahay arent ay noqonaysaa markaa isku dhejiso arent bc arent bc we arent bc mani dad mashquulsan ma mashquulsani qolkaa saasaa u gudbaynaa marka adiga isku day inaad we're good friends jumladaas inaad dhowr qaab soo qorto afartaa qaab inaad soo qorto isku day waaya ka soco for point 9 waa qodobka sagaalaad for question words marka la adeegsanayo ereyada su-aalaha loo isticmaalo fiiri for question words marka la isticmaalayo ereyada su-aalaha loo isticmaalo the verb falka matches wuxuu waafaqayaa the subject ay waafaqayaan waafaqaya maxaa laga wadaa wax kale ma wado yacni I maxaa loo isticmaali jiray markii tenniska la joogo I maxay qaadan jirtay am soo maha oo am lay qaadanaysa haddana dii su-aal laga dhigaya xitaa maarad jumlad dii su-aal laga dhigayo ya still waxa weeye subjectiga iyo falka waa inay iswaafaqaan waa inay isqaadan karaan wey waa inay isqaadan karaan still waxa weeye falka la isticmaalayo waxaa go-aaminayo subjectiga saasaa lala jeedaa she iyo he iyo kutiyood maxaa iyo it iyo hayaartii groupka ahaa iyo singular noun weli maxay qaadanayaan markii tenniska sim present la joogo waxay qaadanayaan is bay qaadanayaan we iyo they iyo maxaan ku irahdaye allahu mustacaan iyo you iyo plural nouns magacyada jamca ah ee marka wadaarnimada tusinaya maxay qaadanaya iyaguna r marka for question words marka la adeegsanayo ereyada lagu sameeyo su-aalaha the verb falka matches wuxuu waafaqayaa the subject ay waafaqayaa ma isticmaali dood haddii jumlad su-aal laga dhigayo ay waxa weye ma la dhahay isay qaadan lama dhahay amteeday qaadanaysaa way warka saasaa laga wadaa su'aala kowaad fiiri what is your favorite food what is maxay tahay your favorite food cunada aad ugu jecesha what is maxay tahay your favorite food cuntada aad ugu jecesha مثلا markii hore jumladu waxay iska ahayd your favorite food is rice cuntada aad ugu jecesha waa bariis marka waxaa rabaa su-aalna ka dhigo marka waxaan keenaya meesha waxaan adeegsan ereygan waxaa lahaa waa question word waay waa erey lagu sameeyo su-aalaha marka waxaa le what is maxay tahay your favorite food cunada aad ugu jecesha maxay tahay when is the meeting waa goorma shirka when is the meeting waa goorma shirka when is waa goorma the meeting shirka wayda marka waxaan isticmaalay erey kale oo question word okay who are your teachers who are waa kuma your teachers macallimiintaada marka waxaan weydiinayaa dadka ay yihiin yaa waa iyaga who are yaa waaye your teachers macallimiintaada yaa waaye garad waxaan kaloo isticmaala marka
question word kale oo who ah waa marka whatna waa question word when waa question word whona waa question word waa erey loo isticmaalay in su-aal lagu sameeyo marka cashiro dambe ayaa si fiican iyoga faahfaahsan ku baran doonaa where are away the bathrooms musqulaha away where are xagee ku yaalaan the bathrooms musqulaha xagee ku yaalaan where are the bathrooms away musqulaha halkay ku yaalaan baa weydiinaya why is it cold maxay qabow u tahay in here halka why is it cold maxay qabow u tahay in here halka why is it cold in here maxay qabow u tahay halka nijda waa su-aalo wey su-aalaha si faahfaahsan muhiimadda waxa weeyaan hadda meesha waxaa ku jirta subject waxa weye waa food waa cunto waa hal magac marka maadaama singular uu yahay ficilkii waxaa waye is walow su-aal ba hala sameeye falku waa is meeting waa shir waa hal shir falku waxaa la isticmaalay waa is teachers macalimiin wey soo maha waa jamc maxaa la isticmaalay r waay bathrooms musqulo maxaa la isticmaalay waxaa la isticmaalay r baa la isticmaalay saasaa loo ila fahamtaya marka hadda fiiri meeshaan soo fiiri why is it cold maxay qabow tahay in here halkan marka maanta subject ma isku jiro waa kaasa waa it way majidaa marka falka is buu noqonayaa yacni inuu question word la socdo falkii bvabki inuu question word la socdo taasi kama dhigayso inuu subjectiga waxa weeye markaasi uu isbedelo waa inay iswaafaqaan still uu iswaafaqayaan waa in isqaadan karaa wey lama dhahayo maadaama wt la isticmaalay istahala tir r ha lagu bedelo lama dhahayo waxaa la fiirinaya subject maxaa waa food soomaan haa islam baa la isticmaalaya how are you sidee tahay mida how are you iska waran marka you baa meesha taalo you maxay qaadan jirtay r bay qaadan jirtay haddana r lay qaadanaysaa yacni keenidda la keenay how oo ah question word yacni taas waxa weeyaan keenidda la keenay awgeeda yacni r loogama tegahay you yacni r isticmaalkeeda uguma tegaysa wey waa lala isticmaalayaa house school waa sida iskuulka iskuulku waa marka waa hal iskuul iskuulka waa sidii waa hal iskuula laga hadlaya maadaama hal iskuul waa singular now is baa la isticmaalaya how are your classes waa sidii xiisadaha how are waa sidii your class xiisadaha waa sidii xiisadaha am I why am I here why am I here maxaa halkaa u joogaa marka waxa weye I baa la isticmaalay marka question wordka waxaa raacaya am baa raacaya mida ereyadan why iyo how iyo waxaa dhan waa question words why am I here maxaan halkaa u joogaa why is she late maxay u soo daadaa marka sheyaa la isticmaala soomaa question wordka waxaa raacaya she falka ay qaadan jirta bvabka ay qaadan jirta oo is ah why isn't she here maxay halkaa u joogi weyday why isn't she here maxay halkaa u joogi weyday mida marka waa isnot way meeshiisi isnot liijir maadaama she ay tahay su-aal iyo diimana laisku darayo isn't yaa la isticmaalay why isn't she here maxay halkaa u joogi weyday hadday meeshaan shiida bedelkeeda ay ahaan laheydna day hadday ahaan laheyd maxaa dhihi lahay why aren't they here maxay halkaa u joogi waayeen saasaa la oran lahaa waana saa u fahamtaa waay why aren't you mad maxaad u xanaaqi la-da horta why aren't you mad maxaad u xanaaqi la-da garad ereyga mad marka macnayaal badan baa loo isticmaalaa
marka American English inta badan waxay u isticmaalaan xanaaq u isticmaalaan halka Britishka ay u isticmaalaan waali insane waali marka lahjadaha isticmaalkay kala duwan yihiin hadda why aren't you mad maxaad u xanaaqi la'dahay mareyka saas ula jeeda ma garat laakiin Britishka waxay markay saan ku dhahaa why aren't you mad maxaa u waalan weyday waa horta adig maxaa u waalan weyday taasay ka wadaan marka jumlada aan soo kormar halmad what is your favorite food maxay tahay cuntada ugu jeceshahay where is the meeting waa goorma shirka who are your teachers waa kuwa macallimiintaada where are the bathrooms awa masquulaha why is it cold in here maxay halka qabow tahay how are you sidee tahay how is school waa sida iskuulka how are you class waa sida xiisadahaaga why am I here maxaa halkan u joogaa why is she late maxay usoo daadaa why isn't she here maxaa halkan u joog weyday why aren't you mad why aren't you mad maxaad u xanaaqi lahaada marka erayadan maaragtay wad oo kale koode ween labo saddex weer afar why shan how way soo laabtan iyo kuwaas waxaa loo yaqaanaa question words ayaa loo yaqaanaa question words ayaa loo yaqaana pointy 10 waxa weeye waa qodobka 10aad for yes no question words marka la adeegsanayo ereyada lagu sameeyo su'aalaha haa iyo mayada ah xaaladaha su'aalaha iyo mayada waxa weeye su'aalo jawaabtooda ay noqon doonto haa ama maya for yes no question words marka la adeegsanayo ereyada lagu sameeyo su'aalaha jawaabtooda ay noqon doonto haa iyo maya the verb falka matches wuxuu waafaqayaa the subjectiga weli falka mar walba falka waxa weeye jumladda noocay doonta ha ahaato waa in mar walba falka uu waafaqayaa yacni subject waa inuu waafaqayaa qodobkaa muhiim wey pointiga qodobka toonaad for yes no question words marka la adeegsanayo ereyada yacni lagu sameeyo su'aalaha jawaabtooda ay noqonayso haa ama maya the verb falka matches wuxuu waafaqayaa the subject ay waafaqayaa kow haddaba am I late ma soo daahaa ma soo daahaa aniga majeedaa jumladda markii hore waxay ahayd aniga waa markii ahayd jumlad caadi ah markaasi oo warbixin ku siinaysa marka am I late ma soo daahaa jumladda marka noocaan ay tahay waxaa loo yaqaanaa waa affirmative wey affirmative ayaa loo yaqaanaa waa jumlad markaasi war inuu sheegayso warbixin bayna siinaysaa waa jumlad affirmative baa laleeyahay affirmative waa jumlad yacni warbixin ku siinaysa wey aday warbixin ku siinaysaa affirmative wey marka jumladda affirmative saanu ahaa waxaa yidhi su-aalaha laga dhigo markii b verb la isticmaalo lana doonaya in la sameeyo su-aalaha loo yaqaano yes no question su-aalaha jawaabta ay noqonaysa haa ama maya waxaa la sameeyaa b verbka iyo subjectiga ayaa waxay booska loo kala bedelaa labadan baa waa isweydaarinaysaa oon markii la isweydaariyo laakiin maxaa dhacaya waxaa dhici doona amtan waxa weeye xarafka ugu horeeya waxaan ku qoraynaa capital waxaa leenahay ay waxa weeye isma bedeleyso ay uguya ay waxa weli isma bedeleyso iyada capital ahaanaysa am I late ma soo daahaa majida kadibna maadaama jumladdu ay su-aal noqotay calaam su-aal baa raacinaya
jumladda noocan waxa weeye waa question baa lahaa, waa jumlad markaasi weydiin ah. marka jumladii hore warbixin bay ku siinaysaa, affirmative aid sooma. tan iidaa war bay doonaysaa, war bay xog bay raadinaysaa. ama ilayd ma soo daaha markaa leeyahay dee waxaan rabaa xog ilaa hela moogta, ma soo daaha macluumaadaan raadinayaa. walidaalika waa aragteen markii cilmi baaris la sameynayo si macluumaad loo helo waxaa la diyaariyaa jumlado markaasi questions oo su-aalaha la diyaariyaa. waay haddaba jumladdan kala soo qaado, is she here, iyada ma halkan ayay joogtaa. is she here, iyada ma halkan bay joogtaa. affirmative-keeda muxuu ahaa? affirmative-keeda wuxuu ahaa she, iyada. she waxay qaadataa, waa iska taqaaniin markii si present la joogo is ayay qaadataa. she is here, she is here, iyada halkan ayay joogtaa. joogsi calaamad dhibic oo dambaysa markay jumladda affirmative tahay. marka jumladda affirmative wey. su-aal markaa kali maxaa sameynaynaa? subjectiga iyo b verbka ayaa isweydaarinaynaa. boosku ma loo kala bedelaya. boosku unhaye shin waxaa keenaysaa booska isna waxaa booska she. laakiin is maxaa weye xaraf ugu horey weyney, waxaa ka dhigaysaa is ayaa odhanaysaa, kadibna subjectiga booska waxaa keenaysaa ista, kadib waxaa leedahay is she here, is she here, ma halkan ayay joogtaa iyada. iyada ma halkan ayay joogtaa. muujeedaa? saasaa odhanaysaa, saas ayay odhanaysaa. waayahay jumladana waa lamid. waxaa laga xoogaa inay ka erayo badan yihiin baa dhici karta, laakiin waa isku mid, mar walba isku mid wey. qaabka un baa ku haysa. jumladdii saddexaad fiiri. waxa weye are my keys on the table, furayaashii miiska miyay saaran yihiin. are my keys on the table, furayaashii miiska miyay saaran yihiin. asalka jumladda wuxuu ahaa affirmative markay ahayd wuxuu ahaa my keys, my keys, furayaasheedu, my keys, furayaasheedu are. marka my keys waa jamac moogta, furayaasha subjecti waa kana are, maadaama jamacu yahay are u qaadana. are on, furayaasha waxay saaran yihiin the table, miiska ayay saaran yihiin. marka miiska ayay saaran the table. marka jumladdan waa maxay? waa jumlad affirmative waay. waa jumlad marka warbixin bay ku siinaysaa sooma. warbixin la ogoliya bay ku siinaysaa. my keys furayaasheed are waxa weeye are on dheh. are on waxay saaran yihiin the table, miiska. waxaa raba inaan su-aal ka dhigo. su-aal markii la sameynayo jumladaha noocan oo kale oo markaasi ay ku jiraan b verbiska is ama are, maxaa la sameeyaa? waxaa la isweydaarinayaa subjectiga iyo b verbka waa booska loo kala bedelayaa bis. my keysna waxaa keentaa booskii arena waxaa geysaa booskii my keys. maxaa oranaysaa marka xaraf ugu horey weyney are, waxaa leedahay are. intaan sidooda usoo qoraysaa, intaan sidooda usoo qor are my keys, are my keys on, furayaashii ma waxay saaran yihiin. are my keys on, furayaashii ma waxay saaran yihiin the table, miiskii miyay saaran yihiin. kadibna waxa weeye calaama su-aal baa raacinaysa, calaama su-aal. jumladdan soo fiiriyadan waa lamid iyo lafteeda. are you from around here, ma aagan ayaa kasoo jeedaa. are you from around here, ma deegaankan ayaa kasoo jeeda. are you from, ma waxaa kasoo jeedaa around here, deegaanka nawaaxigan miyaa kasoo jeedaa.
marka asalka jumladda muxuu ahaa affirmativekeed muxuu ahaa you adiga are from waxaad ka soo jeedaa waxaad ka soo jeedaa around here deegaanka deegaanka ayaa ka soo jeedaa around here deegaankan ayaa ka soo jeedaa sooma around here deegaanka su-aal baa inaan ka dhigo maxaa sameynaya subject waa you somaan haa falkun waa maxay waa b verbkun waa maxay aan isticmaala waa r booska u kala bedel bes rna waxaa keentaa booska una waxaa geysaa booskii r isweydaari maxaa samey maxay noqonaysaa r you are you from waxaa ka soo jeedaa maxaa ka soo jeedaa around here are you from around here waxaweye marka ma deegaankan ayaa ka soo jeedaa ya waaya marka labadan kale waa la mid is your dad doctor aabahaada ma dhakhtar baa is your dad doctor aabahaada ma dhakhtar baa is English easy for you English miyuu kuu fudud yahay labadaa marka waxa weeyaan waa ku daraynaa labadan aan ku darno iyagan waaya is your dad doctor asalka jumladda wuxuu ahaa your dad aabahaa ama adoogaa is a doctor waa dhakhtar waay is a doctor waa dhakhtar jumladda affirmativekiisa saanu ahaa su-aal maadaama your dad aabahaa waa hal qof soomaa waa hal qof waay aabayaashiin lama dhihin your dad aabahaa baa la yiri soomaa marka is ayaa la isticmaalay marka waxaa sameynaynaa su-aal haddaan unaa ka dhigno waa isweydaarinaynaa bis booska u kala bedelaynaa subjecti oo your dad ah iyo ista booska u kala bedel maxay noqonaysaa marka is your dad a doctor aabahaa ma dhakhtar baa is your dad a doctor calaam su-aal raaci calaam su-aal ha ka tegayaa dikri jumladda weli ka aqaldanta is your dad a doctor aabahaa ma dhakhtar baa okay jumladda kala fiiri iyadana is English easy for you Englishii makuu fudud yahay asalka jumladda wuxuu ahaa subjecti waxa weeye waa English marka waxaa oranaysaa farti baa naga khalkhalactay marka waxaa leedahay ingiriisigu is easy for you wuu kuu fudud yahay qof baa aragta ingiliishi dareerinaya marka waxaa leedahay ingiriisiga is easy for you waa kuu fudud yahay marka english waa hal luqad soomaan waa singular noun waa hal luqad ileen luqadda ingiriisiga waa hal luqad marka maadaama singular noun uu yahay is baa la isticmaala su-aal baa inaan ka dhigi soomaa labadan boos ku kala bedel bas isweydaari ista banaanka keen marka waxay noqonaysaa jumladaada su-aal bay isku bedelaysa is English easy for you wajida ingiliishii miyuu kuu fudud yahay ingiliishiga miyuu kuu fudud yahay kadibna calaam su-aal ayaa la siraa marka sidaas ayaa loo sameeyey ayaan sidaa fahamtaa
hal jumladaan soo qaadanaynaa annagoo marka bedelayna ilaa iyo 3 qaado bedelaynaa ilaa 3 qaado. jumladahu waa 4 noocood. waxaan isaynaa marka tana ama I late waxaan soo qaadana aniga am late waan soo daahaa markay qaabkan tahay oo subjectiga lagu bilowdo b verbkan uu ku xigo sifadii ama magacii wixii marka la raacinay la raaciyo mujidaa waxaa loo yaqaana jumlad markay qaabkan tahay oo subjectiga uu ugu hore waxaa loo yaqaanaa affirmative baa loo yaqaana soo ma affirmative waa jumlad markaasi warbixin ina siinaysa. warbixintaas warbixin marka oo la hubo bay noqon kartaa affirmative baa loo yaqaana. magarat su-aal markii laga dhigay maxaa sameynaa marka waanan sheegnayo labada un baa booska loo kala bedelaya. maxaa leeyahay am I late ama waxaa leedahay am I late marka amta eeda waa weyneyneysaa markaad ku bilaabeyso. sideeda soo qaadanaysaa am I late miyaa soo daahaa calaam su-aal raaci kadib su-aal baa samaysa sidaas su-aal ku samaysa. diidmo markaa dhigay maxaa sameynaya diidmada waxay la mid tahay affirmativeka la mid affirmativeka tan waxa waa question waa su-aal waa jumlad marka weydiin ah oo wardoona warbay doonaysaa tan warbay kuu sheegaysaa. kan marka diidmo markaa ka dhigay maxaa sameynaya aniga subjecti ayaa ku bilaabaysa jumladda kadib waxaa leedahay am waxaa raacinaysaa not ayaa raacinaysaa. I am not late ma soo daaha aniga. jumladii waxay noqotay jumlad markaasi diidma ah iyadana waxaa loo yaqaanaa negative ayaa loo yaqaanaa jumlad diidma ah. marka intaan isku soo day inaad ka shaqayso oo mar inaad ka dhigto jumlado marka caadi ah oo affirmative ah marna inaad diidma ka dhigto waa su-aalna waaba ku yihiin. insha allah casharkeena koowaad halkaas ayuu inoogu egyahay. intaa waxa weeye muuqaal lamid ah ku kulmayno sidaasay nabadgeliyo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu.